iyo muuqaalka Daafur TV oo idin soo gaaray ku soo dhawaada warka Daafur TV. akhbaaraadkan idin helana waxaa ka mid noqon doona maamul goboleedka Jubbaland ayaa u digay musharaxiinta madaxtinimo ee maamulkaasi kulan looga hadlayay arrimaha ammaanka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay doorashada Galmudug iyo muddo xileedka madaxweyne Xaaf. qodobadaasi waxay ahaayeen kuwa ugu door corona haatan saaxiibayaal daawadayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan anigoo Maxamuud Sheekh Muuse ayaa halkan idin kala socodsiin doona. aynu ku horeynaa wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan ayaa ka digay in waxa uu ugu yeeray dacaayado laga abuuro ciidamada Jubbaland ee sugaya amniga magaalada Kismaayo. waxa uu sheegay in musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland ee xilligan ololaha wada laga doonayo inay wanaag wax ku raadiyaan balse aan laga aqbalayn inay gaf u geystaan ciidamada maamulka Jubbaland. isaga oo sii hadlaya wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid ayuu sheegay in qof walba oo musharax u noqon karo madaxtinimada iyo sidoo kale xildhibaannimada maamulka Jubbaland balse aan laga aqbalayn in ay wado qaldan madaxtinimo ku raadiyaan. digniintan ka soo baxday wasaaradda amniga maamul goboleedka Jubbaland ayaa ku soo aadaysay xilli qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland ay eedeyn iyo dhaliilo ay u jeediyaan madaxda dowlad goboleedka Jubbaland kaasi oo ku aadan in ciidamo hubaysan markaasi ku doonayaan madaxtinimada maamulkaasi si qasab ah markaasi ay kula wareegaan. dhanka kale kulan looga hadlayay arrimaha ammaanka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa mar kale ka qabsoomay kulan looga hadlayay amniga caasimadda waxaana ka qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska. kulankan oo uu shirgudoominayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Tuulax taliyaha ciidanka booliiska iyo sidoo kale saraakiil kale. kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray dardargelinta amniga magaalada Muqdisho iyada oo si weyn la iskula gorfeeyay sidii loo xoojin lahaa sugidda amniga magaalada Muqdisho oo mararka qaar ay falal amni darro ka dhacaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa mas'uuliyiinta hay'adaha amniga faray in la xoojiyo sugidda amniga isla markaana ay ciidamada kordhiyaan howlgallada ay ka wadaan xaafadaha ku yaala magaalada Muqdisho. muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay kulamo looga hadlayo dhinaca amniga hase yeeshee mararka qaar ayay dhacdaa falal liddi ku ah amniga iyo sidoo kale qaraxyo khasaare badan markaasi geysta iyadoo sidoo kale dadweyne kala duwan loogu geysto dilal qorsheysan magaalada Muqdisho. dhanka kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay doorashooyinka maamulka Galmudug sidoo kale waxaa markaasi ay soo saareen muddo xileedka madaxweyne Xaaf. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay doorashooyinka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedka Puntland waa Galmudug aan iraahdee. sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku baaqday shir dib u heshiisiin oo loo qabanayo bulshada ku nool deegaanada maamulka Galmudug si loo xalliyo khilaafka madaxda Galmudug isla markaana la magacaabo guddi farsamo oo daadihiya qabashada shirkaasi. marka laga soo tago war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa xusid mudan in uu weli jiro khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Xaaf iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena waxaa jira khilaaf ka dhaxeeya madaxda sare ee maamulka Galmudug. dhageystayaal warkii aad ka daawanayseen Daafur TV magaalada Muqdisho waa naga inta cid uu sheego waxay dib uga daalcan karaan barta internetka inuu ku leenahay ee daafurtv.com.